wixii ciidan ahaa ee furmaan ku jiray ee loogu talagalay inay wax ka qabtaan amniga waxaa ka mid ahaa ciidamada loo dana waxaa kaloo meesha joogay booliiskii nabad sugidii asluubkii dhammaan taasoo loogu talagalay in lagu afgembiyo xarunta baarlamaanka aniga ma garan karo sababta loo rabo in la afgembiyo xarunta baarlamaanka laakiin waxaan caddaynayaa wixii shalay dhacay inay ahayd inqilaab loogu talagalay in lagu afgembiyo xarunta baarlamaanka waxaan kaloo rabaa inaan halkaan ka caddeeyo in taliyaasha ciidanka aan dhexdhexaad ahayn taliyaha nabad sugidda taliyaha booliiska taliyaha militariga kulligood dhexdhexaad maaha waxaan kaloo dhexdhexaad ahayn wasiiradoodii wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga oo ah bixiyayaasha mooshinka waxayna saynu u dhaqmaayeen way caddeed inay dhinac ka socdaan oon dhexdhexaad ahayn waxaan aad uga xumahay in taliyaasha ciidanka oo loo xilsaaray amniga mas-uuliyadna ay ka saaran tahay muwaadin kastoo Soomaaliya inay shalay dhexdhexaad ahayn waxaa kaloo iyadan meesha ku jirto waddankan madaxweynuhu leeyahay markay waxaasoo dhan dhacayeen isagu wuu xaadir buu ahaa mana ka hadlin taas waxay caddaynaysaa inuu raali ka yahay uu isagana qayb ka yahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed محمد عبد الله فرماجو وأنا وأقولها جدي أبوي مركي لصوت وقت فرحتي يوم مشحرتي شعب الصومالية المشحرات عيان يسكن له فرح سنة كانوا سنكسوا بحين مركي لغسوي وسكها له وكدوا ودقمي وحكلوا حتى أنا إذا مش كجرت حالي إن لو يمد إلى على ذي قدوميها برلمان قدوميها برلمان كوا شخص كلابات ودك مدهونا كسريو قف كلابات وايستجا إن صفة الله كأه ياش إن جيبي مادين إن على ذي خاص كده قدوميها لجنة كحستي أو حتى أمسون كلي أي واردين sababta loola kaxaysan ay tahay shalay protocolkiisii isa markay tageen xarunta baarlamaanka horin ula imaan jireen sabab aad ula imaadeen dadka in loo kaxaysan waa falaf Gambia oo cad oo bareera oo loola soo kacay xarunta baarlamaanka iyo gudoomiyaha golaha shacabka waxaa kaloo jirto hanjabaadyo loo geysanayo xildhibaanada golaha shacabka oo dhinacan golaha badbaadada baarlamaanka ka mid waxaan leenahay waddanka dimuqraadiyadda ku shaqeynayay madaxweyne farmaajo ku soo dooranay prime minister xasan ali xayraan ku keenay wasiiradan ku ansixinay shalay markii doorashada madaxweynaha dhacaysay madaxweyne farmaajo wuxuu soo jeediyey in xarunta iskool booliisi aan lagu qaban karin doorashada madaxtinimada sabab taliyaha booliiska oo hadlay oo yiri laba askari oo laba sarkaal oo kamid ahayd booliiska Soomaaliyeed oo xildhibaan soo noqday inay codkooda siin doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamed sidaas darteed uu u yiri laguma qaban karo xarunta booliiska maanta anagana baarlamaanka Soomaaliya xarunta golaha shacabka waxaan leenahay shir laguma qaban karo taliyaasha ciidanka aan dhexdhexaad ahayn wasiiradii mooshinka wado sidaas darteed waxaan codsanaynaa inta khilaafkan laga xallinaa oo soo jeedinay